waxaan rabaa inaan idinla wadaago arrin aan isleeyahay haddii aan wax laga qaban natiijadeeda dib baa laga ogaan doonaa taasoo ah sida aad og tihiin ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya waxa uu galay marxalad kala guura oo la rajaynayo dalka inay ka dhacdo doorasho sharci ah oo dastuuri ah sidii kuwa hore waxaa jiray walwal ku qotoma iyo xan la isla dhaxmarayay taasoo si cad ay uga hadleen gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiyaha aqalka sare ra'iisul wasaaraha xukuumadda gabagabadiina uu cadeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya in doorashada ay dhacayso waqtigeedii hadduu alla idmo waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inay aaminaan arrintaas ayada ah maadaama hogaankii dalka ugu sareeyay afartii ugu sareysay dalka ay sheegeen in doorasho qof iyo cod ay dhacayso si taa loo dhabeeyo baarlamaanka labadiisa gole waxay dardar geliyeen oo ay u istaageen oo ay rabaan arrintaas in ay noqoto mid sax ah waxaa la magacaabay guddi ka kooban labada gole oo soo dhammaystira sharciga doorashooyinka qodobo qabyo ka ahaa oo 4 ah guddigaasi waan u hambalyeeynaya duruufo adag ayay ku soo shaqeeyeen ugu dambeyntiina labada gole gudoonkooda ayay u soo gudbiyeen wixii ay soo aruuriyeen ballanka wuxuu ahaa marka la soo aruuriyo in lagu ansixiyo iyadoo waqtiga lala dirirayo horeyna ay u dhacday hal bil oo dib u dhac ah sida ku cad warqadda ay saxiixeen labada gudoomiye waxaa la rabay ama warqadda ku cad heshiiskii labada gudoomiye oo sharci ah labada gudoomiye guddigaasi markii ay soo dhameeyeen hawsha waxaanu filaynay ama ay tahay in loo soo gudbiyo kulan wada jir ah si looga faa'iideysto waqtiga maadaama hal bil oo dadka aad u dhibsadeen dib u dhac uu ku yimid duruufaha koronaha awgiis haddaba waxaa nasiib darro ah golaha baarlamaanka waxaa la furay si wada jira bishaan 6deedii maantana taariikhda waa 10 4 cisho oo maalmo shaqo ah marka jimcaha laga reebo waxay ahayd iyada oo ay harsan tahay muddo aad u kooban sharciyada dalka u yaal golaha u yaalaana uu yahay 3 sharci oo aad u culus guddiga wada jirka ah sharciga ay soo gudbiyeen ee ka dhiman sharciga doorashooyinka sharcigii xisbiyada oo asna u baahan waqti iyo ka baaraan deg waxaa isna yaalla baarlamaanka hor yaalla oo ay tahay in la ansixiyo habraacii lagu ansixin lahaa dastuurka kumeel gaarka ah oo la soo dhammaystiray oo guddiga ka soo islaaday intaa marka la isku daro muddada aan haysanno bisha oo maanta 10 ah baarlamaanka Soomaaliya sida aan shacabka u sheegnay markii aanu qabanaynay muddada 27 bishaan Juun baarlamaanka waxay ahayd inuu degdeg u howlgalo oo maantaba kulan iyo 2 la yeesho arrintaasi waxaa dhacday xagal daacin ka timid guddoonka golaha aqalka sare gaar ahaan gudoomiyaha golaha aqalka sare
lixdii bisha iyo saaka inta u dhaxaysay waxaanu lahayn kulamo gooni ah gudoomiye cabdi xaashi waxa uu si cad u diiday in laga faa'iideysto waqtiga yar ee harsan sharcigan ansixintiisana labada gole si wada jira loogu gudbiyo ayadoo arrintaasi ay ku caddahay weliba qoraalkii uu ku magacaabay guddiga isku dhafka ah waxaan isku daynay in guddoomiyaha laga qanciyo inuu arrintaa ka joogo si ayna u dhicin dib u dhicid labaad waxaan u badalsanayn 7 bishaan hal saac oo habeennimo guddoonka labada gole inay isu yimaadaan si looga arrinsado sharciga doorashooyinka ee ay soo gudbiyeen labada gudbi inaanu go'aan midaysan ka qaadanno si wada jirana loo ansixiyo ballankaas waxaa si cad u baajiyey oo diiday oo wacay guddoomiye mursal guddoomiye cabdi xaashi isagaana si cad iigu sheegay sidoo kale markaan waraystay guddoomiye mursal sidaas ayuu qiray inuu cabdi xaashi ballankaas wada jirka ah ee looga arrinsanayay sidii labada gole ay u meel marin lahaayeen shuruucda taalla ajandihiisii kulankii lagu waxayn lahaa inuu si cad u diiday cabdi xaashi waxaa xigtay inaannu isku mari weynay fakarkaas oo aan dalbannay in la horgeeyo guddiga joogtada ah guddiga joogtada sidaad og tihiin ama xeer hoosaadka labada gole ku qoran haddii guddoomiye guddi uu maqan yahay ku-xigeenkiisa ayaa matala guddiga joogtada ah haddii ku-xigeenka uu maqan yahayna waxaa matala xogayaha haddii xogayaha uu maqan yahayna waxaa matala xibin guddiga ka mid ah waxaannu isla qaadannay in golaha aqalka sare lagu qabto shirkii guddiga joogtada ee ka fadhigan kulankiisii koowaad waxaa loo diray xildhibaanadii senataradii wargelin ah inay saaka yimaadaan golaha waxaa soo xaadiray oo xamar ku sugan 12 senatar oo isugu jira guddoomiye guddi guddoomiye ku-xigeen iyo xogeeyayaal taasoo buuxiyey shuruucdii guddiga joogtada ahaa xalay 12kii habeennimo ayuu cabdi xaashi guddoomiye cabdi xaashi isagoon cidna la tashan wuxuu ii soo diray xogeeyaha aqalka oo uu leeyahay kulankii la tegi lahaa golaha oo 100 kursi ay taallo oo senatar walba uu hal layn keligii fadhiisan karo wuxuu ku beddelay zoom wuxuuna diiday senataradii dalka gudihiisa xamar golaha diyaarka ku ahaa wuxuuna zoom u galay senataro jooga dalka dibaddiisa kan ugu dhowna uu joogo Soomaaliya Puntland taas oo meel ka dhac iyo xadgudub ku ah xeer hoosaadka aqalka ujeedkana uu yahay arrinta uu ka biidiisan yahay cabdi xaashi inay meel marto waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego arrinta igu kaliftay inaan caddeeyo waxa weeye tuhunka la qabo ee aan jirinan sal iyo raadka lahayn cidda sababta u noqonaysa inay maanta ogaadaan cabdi xaashi cabdulaahi guddoomiyahayga golaha aqalka sare oo aan xiriir iyo wada shaqayn fiican wada leenahay fakarka uu qabaa waxa weeye shuruucda adag ee saddexda ah ee midkiiba u baahan yahay ugu yaraan 4 maalmood ama 5 maalmood in golaha shacabka uu marka hore ka soo dhammaado kadibna loo soo gudbiyo golaha aqalka sare taasoo keeni karta dib u dhac ka badan
bishii hore ee la habsaamay. arrintaas ayaan rabaa inay ogaadaan shacabka ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan. haddii aan arrintaas xal loo helin waxaa cad ama suuragal ah waa laga badbaadi karaa laakiin khatarteeda ayay leedahay. waxaa kaloo khatar ah heshiis labada gole ay galeen oo labada guddoomiye ay saxiixeen in uu dhinac ka baxo wada tashi la'aan waxay keeni kartaa khilaaf labada gole ah. waxaanu ognahay oo ummadda Soomaaliyeed og tahay labadii sano u horreysay labada gole inayna wada shaqayn si wanaagsan oo la ansixiyey keliya 5 sharci. golaha aqalka sare 5 sharci 2 sano. heshiiska markuu dhacayna 16 sharci hal fadhi. guushaas iyada ah waxaa khatar ah mar haddii kalsooni iyo wada shaqayn soo socotay muddo 1 sano ah haatan la jallaafeeyo inay meesheedii ku noqoto taasoo dhabar jab ku ah doorashada hadda la filayo iyo xeerarka noo yaallo. waxaa kaloo khatar ah 27 bishan mar haddii guddoomiyuhu uu ku adkaystay inkastoo go'aan gaara uu gaari karin haddana inay leedahay naafadeeda iyo dhibaatadeeda. maanta waxa dhacay waa wax nagu cusub aqalka sare. xildhibaano golihii jooga oo buuxiyey shuruucdii guddinimada sharcina u haysta xeer hoosaadka guddoomiyaal guddi guddoomiye ku-xigeen xog haye buuxiyey shuruuddii oo golihii jooga lana wargeliyey in Zoom lagu raadiyey UK, Kenya, Ethiopia, Garowe, Addis Ababa. arrintaasi waxaan leeyahay wixii shirkaasi ka soo baxa goluhu waa in uu si gaar ah uga hadlaa. arrinta igu kaliftay inaan maanta sidaas u hadlo oo laga yaabo inay xanuujinayso dad badan oo Soomaaliyeed 6 bisha ilaa maanta oo 10 ah waanu isku daynay aniga iyo senatarre kale inaanu qancinno guddoomiyaha. ugu dambayntii guddoomiyaha waxaan leeyahay wixii shacabka Soomaaliyeed aad ka hor sheegtay khudbadaadii macaaneed ee ahayd shacabka ha loo turo ka dhabe taasoo ah waxa ummadda naga filayso isku duubni labada gole wada shaqayn hay'adaha kale ee dawladda khudbadaadii bay ku qoran tahay sidaas awgeed mudane guddoomiye waxaan kaa dalbayaa oo ummadda Soomaaliyeed ay marqaati uga dhigayaa inaad ka tanaasusho mowqifkan adag ee aad qaadatay guddigan maanta aad Zoomka isugu keentana waxaan si cad u leeyahay waa khayru sharci. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.